tani waa mid ka mid ah sababaha aan ugu guuray inaan isticmaalo gool anigoo ka tegay dhammaan nidaamyada kale ee aan isticmaali jiray hadday yihiin kuwa ICT hadday yihiin kuwii hore SMC hadday yihiin waxyaabo badan oo aan kusoo tirageliyay walow mararka qaar ICT aan xogaa euro USD kaga yaro tuurto laakiin gool sababtaan ugu wada go'ay ayaa ah tan hadda casharkan waxaan kugu tusi doonaa maanta 5 trade oo aan qaatay adigu min bilowgeedii maalinka ilaa dhammaadkeedii waxa laga yaabaa tradeska qaar inaynu xilli hore qaadanay qaar London session qaar New York session qaarna dhammaadkii uu suuqa xidhmayay qaarkood inaynu qaadanay waxa lagu wixiyada lama trade garaa laga yaabaa laakiin anigu waan trade garaa markaan tago marka sababahan u doortay bay kamid tahay goal waa volatility way dhaqaaq badan tahay mar kasta way socotaa hadday Asian tahay hadday London tahay hadday New York tahay hadday overlapping ka tahay walacag mar kastaba dhaqaaqda adig marka muhiimaddu waxa weeyaan dhaqaaqa ay sameynayso inaad fahmi karayso inay si sax u dhaqaaqayso oo nidaamkaaga ku saleysan iyo inaysan dhaqaaqayn khasaaraha khasaaraysa fahansan tahay profitka aad sameynaysan fahansan tahay 5 trade baynu qaadanay mid kamid ah waa loss gareynay 4 kamidana waa win gareynay so waxa kugu tusi doonaa muuqaalkan dhammaadkiisa ama dhexdiisa ayaa kugu tusi doonaa dhammaan tradeska aynu qaadanay iyo sababaha aynu qaadanay in mar casharka isla tagnaa chartiga haddaynu isla nimaadno bal waxaynu u fiirsan doonaa waxyaabihii u dambeeyey markaas chartiga ah okay chartiga haddaynu isla nimaadno bal waxaynu fiirsan doonaa tradeskii u dambeeyey ee markaasi aynu qaadanay goal within one day sidaynu qeybta hore kusoo sheegnay maybe dadka qaar inay qaar yidhahdaan wad of a trade garaysay qofba si uu sheego ama hal trade haddaad xitaa hayso intaa waa laga samayn karaya laakiin muhiimaddu ma aha hal trade inuu hayno ma aha of a trade grade waxaasoo dhan ma aha waxaasoo dhan halkaas ka dhig muhiimaddu waxa weeyaan waxa loo yaqaano consistency-ga joogteynta qodobka koobaad qodobka labaad isna muhiimka ah waxa weeyaan waxaagani percentage-ka uu shaqeynayo mid labaadna aynu ku darno oo digniina inta badan dee wax mar kasta horta saa u shaqeeya maaha everyday wax saa u dhaca maaha ama pattern saa u dhaca maaha oo macnaheedu kama dhigno maalin kasta account baad baasinaysaa maaha laakiin maalinka iskugu kaa beeganto waad baasinaysaa sida kale haddii systemka aad saa u isticmaasho ruleska aad ilaaliso waxyaabaha ilaaliso weekaaga profit suuqa waad kaga baxaysaa bishaadana waad kaga baxaysaa okay hadda lacagtan goal shantii trade u dambeeyay ee aynu qaadan haddana laftirkeeda trade baa meeshan ka socda inkastoo aanan gelin oo trade kama qaadan xilli hore early in the morning today maanta ugumana tilgelin aan maanta trade gareeyaba arbaca weeyaan marka uguma tilgelin laakiin meeshan trade baa ku jiray kuwan hadda meelahan aynu ka qaadanay lamid oo sala targetkiisu meelahan sinaafun kugu filan yahay meelaha laga qabanayay marka muhiimadii hadda kaa maaha muhiimadeena waxa weeyaan tradeskan hore inaynu isla eegno tradekii ugu horreeyay aan qaatay meelahan buu ku jiray I know inaanan haddaan sawirkiisii wax baadho I think inaan helayo laakiin okay trade journalka haddaan galno kasoo helaynaa laakiin meelahan ba aynu ka eegno halkan baa ka fudud okay I think ninkan aynu eegno okay so yeah waa kan hadda trade kama fiirsato trade kama ujeedaa MT5 keenina ka qaadnay screenshot-kan from here to here buu ahaa trade-kaasi marka trade-kani bartan buu ku jiraa trade-kani wuxuu ahaa trade meesha tana ku jira I think meelahan baa la qaaday early in the morning bay ahayd subaxii hore ahayd trade anigu markaan gelayay 4tii habeenimo inay meelaha ahayd baan filayaa East Africa bariga Africa dadka qaar baa wax laga yaabaa isweydiiyaan iyo miyaa la trade gareeya Asianka anigu markaan doono waan trade gareeya trade-kan waa Asian session baa la socotaa kan hadda socda waa Asian session ayuu ahaa goal mar kasta way dhaqaaqdaa muhiimaddu waxa weeyaan waxa isticmaalaysa inay saxan yihiin laakiin euro USD waxa Asian waxa iska ilaalay trade-kan kan buu ahaa 3R meelahaas uu ahaa oo meelahaas aan adigu kaga baxay inkastoo hadda SL-keenu halkii saxda ahayd uu yaalay aysan meeshaasi ahayn oo lambarka inagoo eegna mooyaane inaan buuxin karin trade-kaasi kaas uu ahaa another one trade-ka ku xigay isla London session buu ahaa
London session buu ahaa isaguna kan buu ahaa waaba sadabkii ku xigayba sadabkii ku xigay kan buu ahaa isaga sidiisii buu igu saarayayba halkan baynu isagana ka galnay I think meelahaasaan ka galay tradeka meelahana waan kaga baxay janiskii labaad ee isla maalinkaasuu ahaa haddaad u fiirsato waxna hal maalin bay ku dhex jiraan waa one day waxaan o dhami from pointigaas maalinkii bisha 30keedii bay ahayd halkaynu ka soo bilownaa meelaha ma kasoo bilow 30kii bisha halkaas ilaa iyo meesha taasa tirdwanka wixii ka horeeya ilaa halkaasi waa within one day waa one day waynu 5 trade ba ay ku jiraan 4 trade oo winner iyo maybe inuu mid la sahaa asaasan filaya inay ahaayeen kanna mid buu ahaa halkan baynu isagana kaga baxnay anada janis kale isaguna isla casarkii jiray tradekaasi marka uu dhamaaday janis kale meeshan ku jiro fursad sala iyadana waa khaawisnay waa qabanay iyadana tan bay ahayd marka tradeku haddii suuqa aad doonayso inaad sii hayso ood sii jiidanayso dee waxay kaaga baahantahay biaskii waxyaabihii pointyadii kale waxyaabahaas oo dhan waa qodobo gaara laakiin systemka anigu aynu hadda isticmaalayno targetkiisu waa 3R 3.5 2.5 inta badan ma dhaafo haddii tradeka aad doonayso inaad sii hayso oo dee suuqu ilaa halkaa uu socon karayay haddana anigu raba inaan hayo waa riski aan qaatay iyo dee inaan akoonkayguna xamili karayo ugu talagala weeyaan laakiin waan iska jiidanayaa suuqu macna ma samayso okay 3 trades oo winner oo consecutive ayay ahaayeen waxay noogu xigay tradeka bayga ya halkaa trade euro baya ku jira hay kastoo aan rule misgareeyay walow aan doonayay hadda akoon baan tradeskan markaynu qaadanaynay ma ujeedaa waxaanoo tradesa markaynu qaadanaynay tradekaas lacagta riska gelinaya way yaray because risk areana waan joogay xitaa waxaad ka arki karaysaa screenshootkeena lacagta aynu khasaaranay wax yar bay ahayd sidii caadiga percentagekan khasaarin jiray xitaa way ka yarayd dan waa galnay oo sadabku inta badan haddaan ruleska helo waa galnaa ma nidhaadno waxaan baa sidana looma baahno shakiga another one trade kale meeshan ku jiray tradekan u baxsan gaadhin inaan saaxiibna xasuusiyo igu dhawaryaa trade baa meesha jira halkan baan ka salaamaya trade ku dambeeyay buu ahaa aan galo ma ujeedaa kan isaguna habeenkii buu ahaa wuxuu ahaa 9kii habeenimo meelahan anigu isagoo meelaha marayaan seexday then isagoo TB-ga lagu dhacaan soo toosiba oo hawshii isku dhammaatay marka 5 trade hadda meelahan xitaa ka baadhbaadhno jaartiyadoodii meelaha mikeelina hadda kanoo kale trade koowaad buu ahaa kanoo kale trade labaad wuu ku jiraa ya okay waxaan uma baahni ya warwaka tradekii asalka lagaga dhacay kan buu ahaa sorry waxaan niga soo booday waxay tradekii asalka lagaga dhacay yes kaasuu ahaa laakiin waxaan u baahanahay inaynu isla soo aragno MT4 MT5 waasin xiiseynay dhammaagtay okay hadda kan u fiirsato ya waa screenshoot-kii u dambeeyaan qaada kani tradekii horreeyaynu galnay kan buu ahaa kii labaadna kan buu ahaa oo isagana waa kan tradekeeni saddexaadna kan buu ahaa tradekeeni afraad aan ku leeyahay lacag baynu riskarayna kan buu ahaa waxaana inta badan waa sidan anu hadaan akoonka u isticmaalayay gool iyo lacagtaad qabatay haddaad isku eegto akoonkaynu hayno iyo waxa iyo percentage-kaas leekaani gool dadku labada shay bay uga baqaan waa mid horta structure-kada isbedelo oo dadku inta badan waan fahansanin waa qodobka labaad ee khatarteeda ka baqaan oo akoonada qarxisaabay akoonada gool ma qarxiso haddii aad fahansan tahay sida loo isticmaalo sida bibkeeda loo xisaabiyo waxeeda lacaga kale waxba kama duwana 10ka bib ee euro USD iyo 10ka bib ee gold waa same midku ma kala duwana waa isku mid isku lacag baa la khasaara isku lacag baa la sameeyaa waa 12kii bishii 12aad 30keedii wuxuu waa isku mid trade-kii horreeyay 5tii iyo dhowr iyo 30 baynu active gareynay I think mise waynu ka baxnay no waa active gareynay waan filaya markaynu galnay bay ahayd okay I think why markaas okay trade-ka meelaha maan kaga baxay laakiin trade-keena waxaan ka soo galnay because candlekaas aniga active gareeyay waay markaa uu leeyahay afartii oo buuraa ayay ahayd afartii oo buuraa bay ahayd I think ma garanayo saacadiisa wax ka khaldan session iska kala duwan malaha 5 trade bay ahaayeen marka
muhiimaddu waxa weeyaan ay meeshan uga soconnaa systemka aad isticmaalayso percentage intee leeg buu soo saari karaa, ruleskoodu sidee. Hadda anigu systemkan waxyaabahan ku doortay waxaa ka mid ah ruleska kooban 1 2 3 4 5 wax ka yar baad eeganaysaa dhan tradekaaga waad gelaysaa. Maxaa meesha ka baxaya? Waxaa meesha ka baxaya waxyaabii kale iska horimaadkii kale oo dhan, biaska soo eeg, allahuma istacaanay, 1 hour muxuu sheegayaa, 1 a to b waa noocee, 4 hour maxaa la samaysanayaa, 15 minute maxaa la samaysanayaa, balaa balaa balaa, waxaasoo dhan meesha ay ka baxayaan. Just sadabkaaga eego, haddaad sadabkaaga hesho saaxiibow tradeka isku tuur, saaxiibow tradeka isku tuur weeye. Marka muuqaalkan sababta ugu weyn aan ugu talagalnay waxa weeyaan hadda kanoo kale waa markaan tradeka active garaynay, tradeka u dambeeyay aynu galnay when we gonna active waxaana waa screenshot 1 2 3 4 5 ma ujeedaa tradeka dambeeyay maynu qaadan, kan hadda socda maan qaadan oo ma trade garaynba. Marka haddaba muuqaalkan haddii aad systemkan hadda goal weli ma trade garaysa goal mise lacagaha waana trade garayn bay ku jirtaa. Waa midda labaadee inta badan waxyaabaha anigu systemyada markaan isticmaalay nidaamkan goal iyo model 13 baan isticmaalaa, walow model 13 laftarkeeda inta badan imikaanan isticmaalinba. khamiis jimca laga yaabaa inaan ku tuurto sidaan goal u helay, oo de hadda muddooyinkii u dambeeyay dhan in badan aan isticmaalayay, not wax maanta bilaabmay aan maanta bilaabay maaha. haddaan historyga eegno dee bishii 8 sanadkan iyo bishii 5 iyo bishii wixii ka horreeyay iyo in badan ka horba waad arkaysaa anigoo ay ku jirto trade journalkayga. Marka isagoo nidaamku dhammaystiran iyo waxyaabahaas haddii aad u baahan tahay waxaad xog dhammaystiran ka heli karaysaa websitekeena profilekayga ama portfoliohayga. dad portfoliohayga timaado qeybtan websitekan oo inta badan aan iska soo gelgeliyo applicationna aan hore usi samayn jiray iyo waxyaabaan xiiseyn jiray, akoonna aan baasbaasiyey, waxyaaba noocaasa, certifications ya meeshan oo kale signal glass ay ku qoran tahay. hadda waxaa ku jira waxyaabahan oo kale kuwan kale waa traders bir hore galay oo goola oo muddooyinka horreeyay. kanoo kale oo maalinkaas kale bab inta asalka laga dhafta la iska dhaqaaqay, maalinkan kale TB waa kan TB waa waxyaaba horaan is sameeyay weeyaan. hadda already mentorship waa close, laakiin asuun inay furanto insha Allah sanadkan cusub baan rajeynayaa. nidaamka la baran doonaana waa nidaamka goal just nidaamyada kale xataa ICT professional waxyaaba ugu professionalsan YouTube-keena si free kugula wadaagalayaa marar badan, laakiin nidaamkan wax free oo kugula wadaagaya saaxiib ma jirto runta waan kuu sheego. soo dhaaf maxaa ku jira. Marka halkan baad ka heli karaysaa xogtiisa oo dhammaystiran. haddii iska doonaysa inaad iska diiwaan geliso koskiisa waxyaabihiisa halkan baad ka ogaan karaysaa oo aad ka heli karaysaa. profilekayguna wuxuu yaalaa cashirkan hoostiisa, linkiga hoostiisa ayuu yaalaa. intaynu muuqaal kale isku arki doono. salaam calaykum.